ورنتي قلبتي قلب هذا وفرحة بدن قلب dadweynaha quruxda badan oo maamulkii degmada iyo maamulkii gobolka iyo dadweynihii degmada iyo odayaashii oo isdhex fadhiya iyo gabdhahan quruxda badan wax la heli karo maahan fariinta la qadimayana waxay tahay waa la dadaalay hadii la sii dadaalo sidaan waa laga sii fiicnaan karaa hadda degmadii baa noo qurxoon wadooyinkii dhammaan suuqyadii nabad baan joognaa runtii dadaalkaasna dawladda oo uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaaqisiisii uu ku dhawaaqay barnaamijka khawaarijta in la diriro sanad ka hor oo maantana lagu haayo ceelbuur agtiisa duleedkeeda barnaamijkaasi wuxuu keenay iyo wiilasheena dhiigooda iyo gabdhaheenuba wuxuu keenay maanta inaan damaashaadno oo farxad halkaan aan ku fadhino waa intaasoo looga sii dhawaado runtii cadowgan wuxuu ka yimid meel kale nooga yimid wuxuuna kala shakisiiyey dadkii iyo maamulkoodii dadkii iyo dawladdoodii dadkii iyo diintoodii dadkii iyo dalkoodii buu shaki ku kala abuuray shakigaasaan 15 sano la wareersaneen laakiin hadda furihii waa la helay wax laga cabsadaahi ma jiraan hadda wixii ka dambeeya qofka khawaarijta ee dhibaato geysta inaan inta ku yacna qabanno way dowrkeenu kaas way diyaar ma una dadow waxaan rabaa inaan halkaan ka bogaadiyo guddoomiyaheenii hore sharafta leh Axmed Daaci oo 2010 iyo 11 iyo 12 halkaan aan ka wada shaqeynay degmadan oo aan ogahay saldhigga galbeed maalinka calanka al-shabaab laga dejinay oo calanka dawladda la suraayay ma fogeen waa taagnayn haddana waxaan joognaa calankoodii ceelbuur duleedkiisa in laga dejinayo horumar weyn baa la gaaray waxaan rabnaa maamulka guddoomiyaha degmada in lala shaqeeyo bacaadkan laamiyaan u bedelan karnaa hal $1 iyo $2 baan u bedelan karnaa arrintaas waa bogaadinayaa waxaana rabaa inaan ku soo koobo dadkii runtii u soo jihaaday oo maaragtay markii guddoomiyaha hadda loo istaago gabdhuhu ay aad u karaameeyeen runtii karaamadaasi mid ka weyn buu mudan yahay guddoomiye Axmed Daaci intii la soo shaqeysay inta guddoomiyaha hadda jooga Axmedna isaguna runtii shaqo fiican ayuu wada shaqeyn baa muuqata odayaashii runtii la tashanaya muuqata bulshadiisii oo dhan inuu garabsanaya muuqata halkaas aan rabnaa in laga sii wado dalkan al-khawaarijti waa guul daraysatay musuqmaasuqiina dirir xoogan baa lagu hayaa isagana anagu waxaan jeclaa maanta bulshadu inay hadasho oo dhowr qofood oo bulshada ka mid ah inay ka hadasho waxa dawladda lafteeda laga rabo maaha rabitaane waxa qaldan haddii booliska meesha joogaa ay si kale dadka ula macaamilaan taliyihii waa joogaa haddii maamulka si laftiisu uu maaragtay si yahay haddii cid kale oo dawladda sheeganaysa ay wax samaynayso haddii wax la tabayo laakiin waxaan u malaynayaa guddoomiye waa isugu soo laabanaynaa kulanka soo socda waa in bulshada aan dhegaysanaa aad iyo aad baa u mahadsantiin